magaalada Buuhoodle waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax Muuse ay la tacdeen duqa magaalada Shawr Cabdilaahi Maxamed iyo gudoomiyaha magaalada Maxamed Nuux waftiga waxaa soo dhaweeyay waxgaradka iyo ururada haweenka iyo ururada rayidka iyo dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan ugu horeyn halka waxaa ka hadlay duqa magaalada Shawr Cabdilaahi Maxamed iyo gudoomiyaha Maxamed Nuux gudoomiyaha haweenka magaalada Buuhoodle oo soo dhaweeyay wasiirka sidoo kale halka waxa ka dambeeyay xuqaashi waxgaradka iyo dhalinyaradii oo soo dhaweeyay wasiirka kuna soo dhaweynaysay degmada Buuhoodle runtii wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wuxuu joogaa wasaaradda ugu muhiimsan ee Puntland runtiina wasaaraddiisa arrimo badan oo naga xaniban haday tahay xagga isboortiga haday tahay dhalinyarada ururada haday tahay shaqada iyo shaqaalaha u shaqeeya Puntland arrimihiisa u yimi ajandaha kale inta ka badan ee u yimina insha Allah isaga inoo warami doono soo dhawo wasiir insha Allah taala wixii war iyo hawla oo kala qaadan doona muhiimiyada wasiirka ugu badan deegaanka u yimina waa inuu xaqab deegaanka laga qabto gaar ahaan waxa shaqadiisu ay u sayso oo dhalinyarada ciyaaraha iyo isboortiga horumarintooda qayb ka ah insha Allah taala wixii kala waran oo iska waraysanana hadii Ilaahay ka dhigo reer Buuhoodle aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii suudaanku sheegay waa midaysan yihiin midnimadana guul baan u aragnaa waa ku saboorana insha Allah taala midnimada iyo wada jirka reer Buuhoodle iyo nabadana wax ka shaqeyn doonaa mar labaadii bar saddex waqti kale ka socda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo hogaamiyo wasiirku si midna soo dhaweynaa insha Allah wasiirka waqtiga hogaamiyo aad baan u faraxsanahay dhammaan shucuurta wada artay bulshada ay u soo baxday sida loogu heelan yahay sida loogu haween yahay oo loogu kala xariir wada aragtaan marka waxaan leenahay wasiirku soo dhawow deegaankaagii Buuhoodle oo dad badan ay aqliga galiyeen inay qaybsan tahay oo midaysan iyana waa farxad kale aad bay u midaysan tahay waxgaradkeedii dhalinyaradeedii odayaasheedii waxaanu leenahay cidiina qaybin jirtay ee ku naaloonaysa inay na qaybiso ishii bugtaay ku bikaacso waxaan u soo dhaweynaynaa si fiican baan u soo dhaweynaynaa wasiir nahantii ma ahna dadkii koowaad ee adoonta wasiir runtii in badan baan ku soo noqotay wasiir iyo wufuudda la socota gobolkii degmada soo dhawaada gobolkan Cayn anoo ku hadlaya afka dhalinyarada midaysan oo maanta aan midaynay oo dhan wada jeeda diyaarna waa inay wasiir wixii wasaaradda dhalinyarada isboortiga shaqada iyo shaqaalaha mudane Jaamac Faarax Muuse oo aanu halkan u joogno soo dhaweyntiisa maanta wasiir waxaan leenahay ku soo dhawow deegaankaaga ku soo dhawow dad dhalinyaro ku jecel ku soo dhawow dhammaan bulshadii deegaanka oo dhan oo ku heelan soo dhaweyntaada u taagan dambeyn halka hadalka waxaa soo xidhay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada Puntland Jaamac Faarax Muuse aad iyo aad waan faraxsanahay waxaan la soo koobi karaa marka hore waxaan doonayaa inaan ka mahadnaqo soo dhaweyntan aad iyo aad u qiimaha badan aad u sareysa runtii reer Buuhoodle oo aan kala maqleen aan kala hadhin haday tahay ciidamo haday tahay odayaal haday tahay simo haday tahay haweenkii haday tahay dhalinyaradii iyo mas'uuliyiintii kale ee kala duwaneed gobolka dhinac kastaba aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo aad iyo Ilaahay mahadsan ugu naqayaa inaan ku soo beeganay waqti aad fiican oo qabow Najma Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Bulsho TV magaalada Buuhoodle